عليه قبنا هاي دولة قربانا هاي قرنقورة يا نهاي جي على اللي بانا هاي عليه قبنا هاي دولة قربانا هاي قرنقورة يا نهاي جي على اللي بانا هاي قاشاندك عقليو قار هي دفاع عليه قاشاندك عقليو قار هي دفاع عليه أرمايغن قدهيو صودي ماكو قارني قردريو إسياليه أرمايغن قدهيو صودي ماكو قارني قردريو إسياليه midka iigu soo gala walle kama gabanaye shanta lagu galbinaya midka iigu soo gala walle kama gabanaye shanta lagu galbinaya gurigaan ku noolahay inuu goob dagaal iyo noqdo gola colaade gurigaan ku السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركا كوباد إلهي ومهدس كله مركا اللباد وحنو هينا شغا قرن وان لكلا لهين فرين بانا ديرينا ودنيادات waxaweyaan dalkan haddaan anagu dhisan cidna noo dhisi mayso sidaad ogtiin ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan afarta nooc oo isku jirnaa oo xoogga dalka iyo booliis iyo asluub iyo nabasugudba leh waxaanu nahay sargaal iyo saddex sargaal xigeen oo isu taagay dalka iyagoo haystay waajib gudashadoodii qaran difaacaya dalkii waajibkii shaqadii loo igmadayna haysta maalmaha ay nasiinada leeyihiin iyo saacadaha ay ma aragtaa fursadda leeyihiin aan nasanay runtii waqti siiya dalka hadday noqoto bilic iyo hadday noqoto qurxin iyo hadday noqoto banayn darbigan arkaysaan waa darbigii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa fadhigii golaha shacabka waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa meelo badan oo taariikhi ah halkan waxa weeye waa dhagaxtuur taaladii dhagaxtuur halkan waa masaajidka isbaahaysiga islaamka dunida oo dhan waxa weeye dad badan oo dalxiisayaal ay imaanaya markay yimaadaan geedahan bacdi la tuuraba geed bay qabsanaysaa foolxum dalkii geedkan geed garawaaga loo yaqaano geed yuhudkan ay Soomaalida dhahan dalkii horta foolxum ku haya bilicdii iyo deegaankii waxba u dhimaya aragti foolxun oo liidato dalkii ka turjumaya geedka horta waa jarnay darbigan arkaysaan maanta waa cad yahay darbigan arkaysaan maanta waa cad yahay geedihiina waa ka jarnay laakiin waxaan rabnaa bari ka maalin inaan sidaa ka dhigno oo aan ku qorno Soomaaliya Soomaali baa leh horaa loo soconayaa nabad iyo nolol muwaadin codkaaga xor baad u tahay macluumaadkaasaan rabnaa inaan ka qorno dhowr goobaha taariikhiga ya dastuurka ilaali waxaan rabnaa fariimo fara badan aan ku qoraynaa insha Allah waxaan nahay dhalinyaro u dhimanaysa dalka u taagan difaaca dalka waajib gudashadooda qaran haddana ala abuur leh waxaan rabnaa wax badan inaan ku soo kordhino marka insha Allah meelo fara badan waanu ka shaqayn doonaa shaqada iyadoo maanta maaha bari maaha way bilaabatay laakiin dhamaan mayso inta Soomaaliya ay ka hagaagayso waxay dad u dhahaan raas caseer iyo raas Kamboni bay dhahaan maaha suuqadara iyo ilaa laama calanka jamhuuriyaddu ka baban doono oo shanta Soomaali weyn ay soo imaan doonto oo midnimadii iyo wadajirkii Soomaaliyeed soo noqon doono oo dhabaha horumarka cagta waa saarnay aan dhab ugu sii socon doono dayn mayna dadaalka aan bilownay cid aan wax uga rabnana ma laha ilaahay ajar waa uga rabnaa
sumcadda madaxda iyo ummadda Soomaaliyeedba waa uga rabnaa laakiin cid aan wax uga baahannahay ma laha dalkan waa u dhimanaynaa waa u dhalanay waa dalkeennii waa u dhaarannay waxaan tuutaha u qabnaa u shaqaynaynaa waa isaga waxaan naga go'an barnaamijyo fara badan baanu soo wadnaa waxaan rabnaa dadka maaragtay populationka danyarta inaan caawino annagoo isugu jirna 4 ciidan kaamamka qaxootiyada barakacayaasha haddii waxa weeyaan nin kastoo ciidanana waxaa laga rabaa dalkiisa inuu developmentigii horumarka ka socdo oo ka qayb qaato hadday tahay dadka liita oo bukaanka inuu daryeelo oo gargaarkeeda uu ka qayb qaato oo waxa weeye human rights-ga xuquuqda aadanaha nafaraysa inaan shacabka u gargaarno inaan difaacno wax badan baanu soo wadnaa insha Allah waxaanu qaban doonaa haddii ilaahaymo Axmed Gurey waa tagi doonaa taalada daljirka sidoo kale inaan rinjiyeynaa rabnaa oo aan rinjiga ka bedelno meelo fara badan inaan wax ka qabanaa rabnaa oo horumarka dalka shaqada iyadu waa bilaabatay intaasna kuma eka laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa qof walba inuu nala shaqeeyo oo nagu taageero horumarka isxilqaanka waxa weeye qof walba waxaan ka rabnaa wada taala qofkii ka qaaday dalka iyo qarannimada Soomaaliya waxba u qabta madaxda shaqeynaysa in la taageero la support gareeyo loo duceeyo lala shaqeeyo kii anaga waxna la qaban karin aan awoodin inuu ood jiido ama rinji yar darbi nala mariyo waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo duceeyo ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay isku tashato horaa loo soconaya madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaybaheeda kala duwan waxaan leeyahay dhabiyo horumarka waad haysaan Allah idin guuleeyo wabillahi tawfiiq